hooyo dhashay mid ka mid ah laba hablood oo la sheegay inay Soomaaliland ku xidhnaayeen tan iyo bishii koowaad ee sanadkan ayaa dawladda Canada ka codsatay inay ka shaqeyso soo deynta inanteeda. Maymuun Cabdi oo 28 sano jir iyo saaxiibadeed Karima Weeds oo 23 jir ayaa wargeyska The Global and Mail sheegay in bilayska Soomaaliland uu xidhay dambi ah in ay maandooriye isticmaalayeen laakiin labada hablood ay eedaasi daadifeeyeen. Fihima Xasan oo dhashay Maymuuna ayaa dawladda Canada ka codsatay inay mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland la xiriiraan si ay ugu qanciyaan in labada hablood xabsiga laga sii daayo. Fihima oo iyadu qudheedu haysata jinsiyadda Canada laakiin Hargeysa u joogta arrinta labada hablood ayaa maray wargeyska u warantay waxay ku dooday in inanteedu ay dhibaato badan kala kulantay xabsiga xaaladdeeda caafimaad awgeedna aanay ku noolaan karin duruufaha xabsiga ka jira. hooyo Fihima waxay sheegtay in inanteeda iyo saaxiibadeed Karima ay ku dhasheen dalka Canada. Karima hooyadeed yaraan ayaa ay ku dhimatay kadibna qoyska Fihima oo ay saaxiib ahaayeen ayaa soo koriyay. Ayaa ay sheegtay hooyo Fihima oo intaas ku dartay in mar ay toddobaadkan labada hablood ku booqatay saldhigga Koodbuur ee magaalada Hargeysa si ay cunto ugu geyso. Uu bilaysku ka aqbalay cuntada in la siiyo hablaha xidhan laakiin uu diiday in cabitaanka loo geeyo. Markii arrintaas ay ka cadhootayna ay ugu hanjabeen iyada laftirkeeda ay xidhi doonaan. wargeyska The Global and Mail ee ka soo baxa dalka Canada waxa uu ku waramay in qareenka labadan hablood oo ah Mubaarak Maxamuud uu u cadeeyay in maxkamadda degmada Hargeysa ay 8 bishan Abriil ku heshay dambi ah inay khamri cabeen waxaana ku xukuntay midiiba 2 bilood iyo bar xadhiga iyo 40 jeedal ah. laakiin waxa uu qareenku intaas ku daray in bilaysku aanu wax khamriga ka helin guriga hablahan lagu soo qabtay. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Canada mudane Job Babcock oo arrintan hore uga hadlay ayaa sheegay in safaaradda Canada ee magaalada Nairobi ay xiriir la sameysay mas'uuliyiinta Somaliland si xogo dheeraad ah uga hesho dacwadda loo haysto labadan hablood. afayeenku waxa uu sheegay in labada hablood loo fidiyay wixii la talinay u baahnaayeen arrintoodana safaaraddu ay ku jirto laakiin aanu faahfaahin intaas ka badan ka bixinayn. telefishinka codka bariga Afrika oo baaris dheeraad ah ku sameeyay qadiyadan ayaa ogaaday in 19 January uu bilayska Somaliland guri ku yaala Hargeysa ku soo qabtay Maymuuna Cabdi oo reer Somaliland iyo Karima Weeds oo cadaan u dhalatay Canada iyo 3 ruux oo iskugu jira 2 wiil iyo gabadh iyaduna sidata jinsiyadda dalka Ingiriiska. warka uu codka bariga Afrika helay waxa uu sheegayaa in wiil ka mid ah 5 ruux oo magaciisa lagu soo koobay Cabdiraxmaan ay xabad bilaysku ruday ku dhacday intii uu socday hawlgalka lagu soo qabanayay 5 ruux isagoo dhaawac ahna wali uu bilayska gacanta ugu jiro. wiil magaciisa Muuse lagu soo gaabiyay oo isagu Soomaali ah iyo labada hablood ee Maymuuna iyo Karima ayaa iyaga ay maxkamaddu ku heshay dambiga ay ku qaaday oo uu xukunku ku dhacay. laakiin wiilka dhaawacan iyo gabadha sidata jinsiyadda Ingiriiska waxba lagu mehelin inkastoo uu warku sheegayo in Cabdiraxmaan uu wali ku xidhan yahay xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa. 3 qof ee dambiga lagu helay ayaa qaatay racfaan laakiin qareenka u doodaya oo codka bariga Afrika la xiriira ayaa ka gaabsay in arrintaas uu ka hadlo. Cad Fataax Xared, codka bariga Afrika, Hargeysa.